maanta waxaan hayaa video aad u muhiim ah oo in badan iga codsateen oo su'aal la iga soo weydiiyay waxaana ku saabsantahay cardio oo ah orodka iyo wixii la mid ah iyo weight training resistance training waxa loo yaqaan oo ah birta culus oo la qaado labadooda kee muhiimsan kee adiga ku muhiimsan talooyinka shaxmad ku siinaya maxay tahay videogan aad intaasoo dhan uga badbadan doontaa daawo ilaa dhamaadka xikmad culus ayaad ka faa'iidi doontaa lana wadaag walaalahaaga السلام عليكم وش حكمت حمد كل آد وعروس أو كساب سن كاديو ذا أو كمية أردك يوحي لمدة إيوه ويت ترينين لابد كيف مهم سن كيف عن سؤالها صدّن أيام وجواب الدوام إلا صعود فيديو هنا دماتك حكمت عروس أو لقى شقية بقى كجرت تلوين كان كسين دونا دماتك مالك وقر وتلوين آد مهم أيام كسين دونا فيديو دماتك مركا سب فيديو إلا دماتك هذا دلها هذا اللي جوكتو حكاو سنة ولا كيو نات لايك سارتد شير سارتد سبسكرايب ku qabata channelkan aqoon iyo xikmad iyo walaaltinimo iyo wanaag baa lagu wadaaga marka hadaan video gudaha galno horta inaad ogaatid waa labaduba muhiim bay ku tahay labaduba caafimaadkaaga muhiim bay u tahay inaad uradid kaadheedii fuushid iyo inaad birta culus ay qaadeen labaduba muhiim bay ku tahay waana ka fiican tahay inaad midna samay labaduba maadaama ay muhiim ku yihiin ma isla mid baa maya mid baa muhiimsan way si aad ogaatid ila soo marka waxaan ku hormarinaa muhiimadda ay leedahay weight training ama birta oo la qaada muhiimadda ay leedahay ku hormarayna muhiimooyinka iyo waxyaabaha aad helaysid markaad sameyso horta midda koowaad waa murqaha oo ay dhistaa birta markaad qaadid murqaha ayay dhistaa kaadiyadu murqa ma dhisto waa pointiga koowaad soo xabad one goal baan siinaynaa bir qaaditaanka murqaha la dhiso marka aad bay muhiim u tahay murqaha oo jirkaaga aad dhistid aad bay muhiim u tahay bal ila arag faa'iidooyinka waxay ka hortagtaa dhaawacyada hadaa tahay qof bahalkan la yiraahdo murqale haddii janjarta ta kubtid afar lugood kama jabaysid moogta dadku markay waajibaan waxay markii kasta dhaawac badan u soo gaaraa lugta uga jabaan murqahooda ayaa xoog yareen murqahooda ayaa yar qofku ka murqa yar yahay bir yar baad damcaysa inaad qaadid dhabarka ku kala siibanay maxaa yeelay murqa kugu filan malin yaa orod baad damcaysa lugta ka murqaanaysa maxaa yeelay orod malihid bahalkan la yiraahdo murqa kugu filan malin shaqo badan baad qabsan kartaa jawaankaaga bariiskaaga dhawr ka saaran kartaa xamaali ma baan wax kasta qabsan kartaa qof xoog labaad yaa alaabtaada ranaysid qolka sariirtaad kala ranjin karaysanaysa hadaad murqa badan leedahay caajis yaraa ku saaran qof xoog leh hadaad tahay murqiisu dhisayn caajis iyo culays ma dareemaysid tan kale waxay leedahay la dagaalanka baruurta murquhu ayaga baruurta la dagaala weli waxaan ku dajinaa qodobkooda murqa dhiska murqaha faa'iidooyinkooda rabaa inaan wax yar ka iraado intaa way ka sii badan yihiin la dagaalanka baruurta pointiyalka inaan soo qortay waa ku sharaxay marka waxaan rabnaa si attention la aad ila socod yaa ayaga baruurta la dirir si ula diriraan qof ka murqa badan yahay jirkiisu baruurta ayaga la dirir maadaama ay murquhu isticmaalaan energy-ga ama calories-ka cuntada aad ka helaysid baruur ma imaanayso baruurta ay ku imaataa markaad cunto cuntid cuntada energy bay helay energy-ga wuxuu noqonayaa surplus buu noqonayaa ama wuxuu noqonayaa wuu badan yahay inta u baahan ka badan laakiin haddii murqaha ku badan yahay murquhu energy fara badan bay ayaga isticmaalaya baruurtii jirkaaga ma fuulayso calool kus ma noqonayso la dagaalanka cudurro fara badan bay la diriraan murquhu cudurro fara badan oo ay ka mid tahay caabuq jirgooga skinka ay cudur baruurtu markay jirkaaga ku badan tahay ay cudur baa imaanaysa bedelkeeda hadduu jirku murqaha ku badan yahay caafimaad fara badan baa imaanaysa laakiin toodu dheer quruxda jirka hadda mar hadduu ninku murqaleeyay waa aragti u dhisan yahay sooma gabar ka murqa badan tahay way ka isneelaysan tahay ninba nunka jirka murqa badan uu ka qurxoon yahay cunto badan baa cuni karaysa haddaad murqa leedahay cunto fara badan baad cuni kartaa adoon baruur ku fuulay sababtu maxay tahay horaan uga soo energy-ga murqu ayaga isticmaalay markaasaa baruuran kuma fuulayso hilibkii baad ka dhergaysaa qudradii baad ka dhergaysaa baruurna kama baqaysa hormoonada jirka weliba ragga hormoonka jirku balance baa ku imaanaya maadaama baruurtu marka weliba ninka caloosha ka saaran tahay maxaa ku dhaca mataqaan waxaa ku dhaca hormoonka ragga ayaa yaraada markaasa waxaa ku bata hormoonka dumarka taas waa ninku markuu bahalkan leeyahay calooshu ku baxdo uusan cali fanaxis u shaqaynayn oo uusan asaga dhan hami dareemay midna uusan u lahayn oo caajisle u yahay oo daqan u yahay
maxaa yeelay hormonkii ragga yaa yaraaday hormonkii dumarka ku bartay laba qof oo aad u burburan hadda aragtay ma kala duwi karo qofka aad u buuran oo dumarka qofka aad u buuran ragga way isku eg yihiin because hormonkooda isku mid ba noqonaya laakiin baalka la yiraahdo laakiin ninka murqo u dhisan yihiin oo hormonkiisa balance yahay waxa u badan muruq baalkan la yiraahdo hormonki ragga ee testosterone loo yaqaan ila soo lafa iyo kala goysada oo caafimaad baa ku imaanaya hadduu murqaha u dhisan yihiin maxaa yeelay xubintii xoog bay leedahay way dhisan tahay lafihii ma jabayaan tendoniska waxaa loo yidhaa oo meesha kala goyska isku xiraaho xoog bay leeyihiin ya taasoo dhan waxaad ka helaysaa haddaad birta qaad maxaa yeelay tendoniska sidoo kale iyaguna xoog bay leeyihiin lafihii way dhismayaan midda kale oo birtu ay uga fiican tahay kaadhiyada bahalkan la yidhaahdo jimicsigii مثلا maanta waxaa aaday jimkii baa aaday jimkii markaa tagtay hal saac waad soo qaaday waa soo laabatay ilaa laba maalin saamayntii jimka yaa weli murqaha ku jirta murqihii weli waxay u baahan yihiin inay recovery sameeyaan weli waxay samaynayaan kuriinay samaynayaan marka waxay noqonaysaa energy fara badan bay isticmaalaan sidaas darteed adoo nasanaya yaa baruurtii lala dagaalamaya jirkaaga oo calorieski la baanganaynaya calorieski baruurta loo bedeli lahaa oo markaad cunto la seexato ya marka inta cunto aad la seexato bedelkeeda murqihii baa waxay u isticmaalayaan energygaas inay ku dayactirmaan inay ku dhismaan sidaas darteed 36 saac ayaa lagu qiyaasaa kadib markii ay jimka tagtay 36 saac kadib markii ay jimka tagtay yaa murqihii yaa baa saamayntii jimka weli ugu jirtaa waad cunto murqihii isticmaalayaan laakiin haddaad kaadhiyo samaysay bedelkeedii faa'iidadaas ma helaysid waa soo socotaa kaadhiyadu ayadana wuu guda geli doonaa midda saddexaad oo murqaha ay oo birtu la qaadaa wanaagsan waxa weeye wanaajinta wadnaha shaqada cardiovascularka inay baalkan wadna garaaca oo fiicnaado maxaa yeelay wadnaha marka qofka exercise badan wadnihiisu uu ka caafimaad badan yahay ya so because marka jimka tagta wadnihi xoog u garaacaya training buu qaadanaya markaad soo laabatid oo nasanaysa wadnaha tartiib buu isaga shaqeynaya dib kuma hayso ya waa qof xoog la gacantiisa soo shaqeynaysa oo bir qaadaysa 20 kiilo iyo qof xoog yar gacantiisa oo 20 kiilo qaad qofkan waa dhibaatoonaya muu si tig u dhaay xoog galaan qofkan xoog galuhu ya qofkan xoog galuhu sahal buu qaaday wadnaha qofkan waa sidaas oo kale qofka tababaran wadnihiisu tartiib u shaqada u qabanaya dhibaato iyo wadna xanuun ma ku imaanayso qofka oo baalkan leeyahay soo sameeyay birta soo qaada laakiin kaadhiyada taas waa saan isla arki doonaa tan kale dhimista miisaanka haddaad inaad baruurta iska dhintid weight training the best inaad baratid waa compound exercise ka midka loo yaqaan inaad samaysid waay oo murqa fara badan tababara inaad samaysid miisaanka oo si caafimaad u dhisma maxaan ka wadaa miisaankaaga oo dhaca caafimaad inay tahay ma haddii cudur kugu dhaco miisaankaaga uu dhacaya waa isla ognaa soo ma miisaankaaga uu dhacaya haddii aad biyaha iska baalkale aad is oomisid haddaad aad u dhiitid miisaanka uu isdhimaya laakiin waxaas caafimaad miisaan isdhimay ma miisaankaaga oo caafimaad isku dhima waxaa weeye inay baruurtu yaraato murquhuna bataan taas keliya waxaa laga helaa birta ood qaadid ya tan u dambaysa endurance inaad dhis endurancega Soomaaliya waxa lagu yiraahdaa laakiin endurance waxaa la yiraahdaa maalan ba haddaad banooni ciyaartid oo kale waa arag qof wuxuu ku daalayaa saddex sakan nina waa arag wuxuu ku daalayaa hal saac urday qofkaas uu ka endurance badan yahay marka qofka birta qaada endurance uu dhisayaa endurance kaas maxay waxa laga hal saac inaad train garaysid baa laga yaabaa waa fahmayso ma laakiin aadan neefta aadan tacbaan noqon wada suuxin baa laga yaabaa waxa laga qof kale hadduu isku dayo exercise ka sameynaysid inuu 5 daqiiqo qalaf dhinac u yiraahdo sababtaas maxay tahay endurance giisa ayaan dhisnay marka dad wax badan train garaysid endurance-gaaga yaa dhismays tan kale waxaan rabaa point muhiim ah intaan muruqa dhiska ka gudbin intaan ka gudbin birta oo la qaado intaan ka gudbin waxaan rabaa inaan point muhiim ah kula wadaago pointigaas rag iyo dumarba waa muhiim waxaan arkaysaa dumar oo rag coach soo dhahay dumarka inay kaadhiyo waxa sameeyaan maya jirka bini aadamku Ilaahay u abuuray exercise isku sibu ugu baahan yahay isku waxba uu qabtaa hadduu rag murqa badan u baahan yahay dumarkuna u baahan yahay waa fahmaysaa dumarka qaar waxaa jira ka baqayaan pointigan sida aan u dhigay dumarka waxaa jira qaar ka baqayaan inay rag oo kala noqdaan ma noqon karto Ilaahay jirkaaga saas uma abuurin jirkaaga taas Ilaahay uma abuurin hormoonkaaguna
ma ku ogolaanayo inaad sidii ninkoo kale murqo weynaad murqo yar oo dhisan gacmo nadiifa oo baruur lahayn laalaadin yaad yeelanaysaa oo baakan tone arms waxaad dhahdeen gacmo toon garaysan oo dhuudhuuban yaad yeelanaysaa marka gabdhow birta qaada okay muhiimadda kaadheedu leedahay galayna muhiimaddu kaadheedu leedahay laakiin inta horta aan u guda gelinaa arki kartiinba labadooda waxaa muhiimsan judgmentigii man sameynana maxkamadii baa xukunka gaaraysa waxaa muhiimsan birta oo la qaadaa waa ka muhiimsan tahay kaadhiyada okay wanaajinta wadnaha caafimaadka iyo xididada jirka cardiovascularka yay aad tan muhiim ugu tahay maxaa yeele markaad orodidoo kale markaad baaskilka wadidoo kale wadnaha aad baa uga shaqaysiinaysaa marka muhiimadda ay leedahay taas wey oo ay uga badan tahay birta oo la qaadaa miisaan dhimista miisaanka oo la dhimo point kala soo socda miisaanka waxaa laga yaabaa inaad kaadhiyada ku dhintid laakiin aysan caafimaad ahayn tan hoos kugu sheegi doonaba waxaa laga yaabaa haddaad iska badis kaadhiyada inay murqahaagu hoos u dhacaan taasuna ma ahan wax caafimaadkaaga u fiican murqahaagu inay hoos u dhacaan marna ma ahan wax caafimaadkaaga u fiican marka kaadhiyada dhimista miisaanka way keentaa haddaada iska badi endurancegana way dhistaa excellent bay taas ku tahay endurancega inaadan aad bahalkan aadan neeftuur bilaabin ka laba xabo qaadi ama bahalkan wax yar samaysa adiga neeftuur bilaabin aad bay excellent ugu tahay marka dhibaatooyin ayay leedahay ogow murqaha tii hore haddaan wax yar gadaal u laabto ogow madaana ogaatid waa pointigan oo birtoo la qaadaa wax faa'iido daraa oo ay leedahay ma jirto haddii aad si wanaagsan sida loo qaado aad barat anigu waa ku bari doonaa exercise badan oo kuusoo samayn doona sida saxda loo qaado haddaad taqaan wax faa'iido daraa oo ay leedahay malaha halka faa'iido daraa leedahay waxaa weeye haddii aadan aqoon sida loo qaado oo garabka iska jibis taas waa faa'iido darre aday kugu tahay annaga nuguma laakiin sidaas la ognahay baalkan la yiraahdo birtoo la qaado wax faa'iido daraa male halka kaadheedu ay faa'iido darooyin leedahay waxaa laga yaabaa haddaad iska badis dad waxaa jira maanta dhan kaadhee sameyn baa maanta orod bay ku jiraan dadkaas murqoodu hoos bay u dhacayaan maxaa yeelay murqoodu waxay u baahan energy ay ku koraan bay u baahan haddii energyga dhammaan aad ku dhammaysid bahalkan la yiraahdo kaadhiyo wax ay energy ay ku koraan ma siinaysid marka sidaas darteed dad waxaa jira kaadhiyo badan sameyn murqoodan ay dhammaadaan taasu waa faa'iido darro ay leedahay kaadhiyada ogow birtoo la qaadaa wax faa'iido daraa ma laha tan kale waxaa jira waxyaaba weli la isku khilaafsan yahay oo dhahaysa hormonka ragga waxbay u dhintaa hormonka ragga testosteronka loo yaqaan inay dhinto yaa laga yaabaa laakiin taas weli khilaaf baa ka taagan marka haddaad ragga tahay talooyinka soo socdaan ku siin doonaad qaadanaysaa laakiin bahalkan la yiraahdo ha iska badin sideeda dhanba ha iska badin kaadhiyadu tan kalaa ka muhiimsan hore isku soo raac marka tan weli waa la isku khilaafsan yahay pointa ugu dambaysa weli researcherska dadka ku takhasusa exercise iyo cuntada oo anigu ka mid ahay weli waa research baan ku wadnay marka talooyinka ku siinaya maxay tahay haddii aad rabto inaad baruurta dhintid samee labadaba haddaad tahay qof sulqa oo jiimka ku cusub oo weli soo qaadan labadaba walaalow samee adoo xoogga saaraysa murqa dhiska marka labadiiba waad samaynaysaa adoo birta xoogga saaraysa ayr birta u baahantay sida loo qaado inaad baratid xoog adiga awooddaada focuskaaga ku koobaad ha noqdo birta qaaditaankaaga weligaa birta hamiyadda koowaad sii dad badan qaladka sameyn maxaa waa jiimku imaanaya kaadhiyo ku bilaabaya kaadhiyadaas waxaan rabaa inaysan haddii 2 daqiiqo camal xeer si aad hore dhidiyar shax isaga keento waa caadi laakiin haddaad kaadhiyo ku daalisa aad samaysid birti intaada qaadin ka hor birti aan isla soo ogaan inay ka muhiimsan tahay haddaad kaadhiyo fara badan samaysid taas khalad wey soo marka weligaa ha ka hormarin kaadhiyo bahalkan la yiraahdo birta maxaa yeelay energygaas waxaa u baahan tahay inaad birta ku samaysid maadaama aan isku soo raacin inay birtu ka muhiimsan tahay kaadhiyada haddii amigaagu inuu murqa dhisto waxba ha isku daalinba kaadhi waxaa laga yaabaa saddexdii weyba hal mar isaga tuur birta xoogga saar welibaa raggin maxaatada oo dhahaya sidee murqa u dhisnaa kaadhiyo adinku ma samaynaysid si aad uga maarantid sida aad uga maarantid wuxuu ku leeyahay bahalkan la yiraahdo si aad uga maarantid kaadhiyo dhan waxaa jira waxay exercise la dhaho hit exercise kaas si weey birtiba focus reps-kiba ku celinaysa adoo nasan yaad samaynaysaa exercise waxaa weey bahalkan high intensity training intensity-giba ku badinaysa waa train garaynaysa
taas waxay keenaysaa wadnaha aad garaacis u sarako soo kaadhiidi adoo birti qaadaysid yaad kaadhiyo aad u wanaagsan excellent yana yaad samaynaysaa marka nasiinadii baa yaraynaysaa exercise-keena si xoog leh oo focus baa u qaadaysaa ya si kal iyo laaba waa kaas eragana si kal iyo laaba oo exercise u qaadid adoo nasiinadii labadii exercise dhexdana samaynaysid ma aan maanta mid xagga istaagaysid hatta hebel la soo sheekaysanaysid faarax la soo hadlaysid ma kaas ma hadla focus baa taa waa qaaday kanaan nasiinadii waa yaraysay mid kaad qaadana kal iyo laaba ka u qaadaysaa taas haddaad samaysidna kaadhiyo adigu ma baahnid anaa kaa ballan qaada inaad u baahnid hayloobi nasiinada waxa kale ugu muhiimsan nasiinada video kale ka soo samayn doona hayloobi nasiinada maalmaha aad nasiinayso oo waxba sameeyeen waa inaad hurdadaada iyo nasiinadaada kale iyo maskaxiyan maskaxdoo la nasiyo needkan waalidan aad isku yaraysid ya nasiinada hayloobi video kale aan soo samayn doona isla nasiinada ka hadno sida ugu wanaagsan waxa weeye exercise-kaagu inuusan ka badan hal saac si aad gym-ka u jeclaatid oo exercise-ka u jeclaatid markaad gym-ka imaatid waa bilaabaysaa hal saac oo focus baa kala tuuraysaa kadibna waa dhammaystiraysaa afadii baa aadaysaa si aad u soo laado laakiin haddaad 2 saac 3 saac maala yacni wax maanta dhan telefoon la galo waa nacaysaa maxaa yeelay waxaad ogaanaysaa waqti haddaad walaal qof hay quality la tahay oo wax barta ama shaqale waxa ogaanaysaa waqtigan faraha badan inaad meel kale geliso aad u baahan tahay marka si aysan dhibkaas u imaan oo aan waqtiga gym-ka su'aal loo gelinba waxaad u baahan tahay inaad hal saac soo koobtid kala tuur bam xaafadda ka aad qubayso danaha kala raaco marka intaasaan rabaa inaan ku soo koobo videogan video waxa aad xikmad badan ay hubina wax badan ka faa'iideysteen marka la ku xasuusinaya subscribe garay walaalahan la wadaag video channelkan waa channel kaliya oo aqoon laga soo shaqeeyay oo cilmi sareeya uu ku jiro anigu ma coachska baalkan la yiraahdo hadda baalka wax yar soo barbarto kale ma waxaan sanooyin baan soo geliyay anigu waa maadsantiin walaalaha